taariikhda Soomaaliyeed waxa ku xardhan magacyo dahab ah oo ka mid noqday iftiinkii halganka iyo difaaca sharafta dalka iyo diinta Islaamka. Mid ka mid ah magacyadaasi waa Sheekh Bashiir Yuusuf Sheekh Xasan oo caan ku noqday geesinimo, aqoon cilmiga diinta iyo jihaad uu u galay sidii uu u difaaci lahaa ummadiisa ugana xoreyn lahaa gumaysiga Ingiriiska. Sheekhu ma ahayn kaliya wadaad diinta bartay ama dadka bare ee wuxuu ahaa ahliyay rumaystay in diintu aysan ku ekayn minbarka iyo salaada, balse ay tahay dhaqdhaqaaq dhaqan in loo bedelo ay waajib tahay, asagoo caan ku noqday weedhi ahayd bisinka wax ku dara. Waxa uu sheekhu xusuustay in Islaamku yahay diin dadka ku hagta inay diidaan iskana difaacaan dhagarta gaalada shisheeyaha ah. Wuxuu Sheekh Bashiir u dagaalamay xaq iyo cadaalad, isagoo rumaysnaa in gumaysigu yahay dulmi lagula kacay diinta iyo dadka Soomaaliyeed. Sheekh Bashiir waxa uu ahaa sheekh Soomaaliyeed oo ku soo koray kuna soo barbaaray xaruntii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo mid ka mid ah dariiqada saalixiyada. Sheekh Bashiir Allah u naxariistay waxa uu adkeysan waayay dhibaalihii gumaystuhu ku hayay dalka dadka iyo geyiga Soomaaliyeedba. Dabadeed waxa uu samaystay koox la diriirtay gumaystaha iyo dadka uu garbinaya. Intaa kadib waxa uu Ingiriisku go'aamiyay in la dilo ama la soo qabto Sheekh Bashiir. Soo dhawaada saaxiibayaal, daawadayaal, halkani waa madasha juqraafi oo aan kaga hadalno tagtadii iyo taariikhdii Soomaalida ee qarniyadii hore kuwii dhaxay iyo kuwii dambe. Hadday tahay markii uu horeysay aadna soo booqato fadlan bogga falowdhe YouTube-kana subscribe saar. Waxa uu Sheekh Bashiir bilaabay halgan iyo dhaqdhaqaaq dagaal oo uu kaga soo horjeeday gumaysigii Britain, waxaana durbadiiba gumaysigu kala hortagay caburin intii u dhaxaysay 1920 iyo 1945 markii uu bilowday kacdoonkii Sheekh Bashiir iyo ka hor ayaan xoogaa ku soo dulmaraya. Xaaladda dhulkii hoos imaanayay xukunkii Ingiriiska ee British Somaliland Protectorate waxay ahayd mid aad u kacsan oo dadka gumaysiga ay sii naceen. Waxaa Soomaaliya waagaas ka dhacay dhowr kacdoon iyo mudaharaadyo ka dhacay magaalooyin iyo miyiba intii u dhaxaysay jabkii daraawiishta Sheekh Maxamed Cabdilla Xasan iyo kacdoonkii Sheekh Bashiir. Kacdoonkii ugu adkaa ee waqtigaasi dhacay wuxuu ahaa kacdoonkii canshuur diidnimada ee Burco kaas oo dhacay 1922. Sidoo kale waxaa dhacay fashilkii ciidankii Somaliland Camel Corps sanadkii 1944 kadib markii Ingiriisku isku dayay inuu ciidan ka dhoofiyo Soomaaliya si uu ugu adeegsado dalal kale oo uu gumaysan jiray. Isla xilligaas waxaa bilaabmay ururo Soomaali ah oo kor u qaaday fikirkii Soomaalinimada iyo Soomaali weynimada, kuwaas oo galay halgan diimeed iyo mid Soomaaliyeed. Kacdoonkii Sheekh Bashiir Allah u naxariistay waxa uu bilowday 2 Luulyo 1945. Sheekh Bashiir waxa uu ku urursaday 25 nin oo geylamayaal ah magaalada Wadaamago, waxa uuna ka soo raray Wadaamago asagoo geeyay agagaarka Burco, halkaas oo hub ugu qaybiyay. Fiidkii 3 Luulyo kooxdiisu waxay galeen magaalada Burco, waxayna rasaas ku fureen ciidankii ilaalinaya xabsiga dhexe oo ay ku jireen dad loo soo xirxiray mudaharaadyadii ka dhanka ahaa Ingiriiska. Waxay halgamayaashaasi la wareegeen gurigii gudoomiyaha gobolka Burco Major Chambers kadib markii ay dileen askartii ilaalinaysay. Isla markiiba 30 askari ayaa loo diray si ay u dabagalaan kooxda. Sheekh Bashiir iyo naftaduuriyaashii la socdayna waxay u baxsadeen beer oo ku taala koonfurta bari ee Burco, halkaas oo ay difaac adag ka samaysteen iyagoo sugayay weerar Ingiriiska uga yimaada. 2 sano oo dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa kadib, mar walba oo ciidamada Ingiriisku isku dayaan inay ku duulaan Sheekh Bashiir waxay la kulmayeen guuldarrooyin isdaba joog ah. Ciidankii Sheekh Bashiir hadba si joogta ayay u gurguurayeen iyagoo ka fogaanayay inay meel joogta ah loogu soo hogaago. Sheekh Bashiir wuxuu fariin u diray culimada magaalada Ceerigaabo iyo kuwii Burcaba, isagoo ku booriyay inay ku soo biiraan halgankiisa. Culimadii iyo shacabkii Ceerigaabo waa ay ka jawaabeen, waxayna abaabuleen ciidan hubaysan oo qoryo iyo hubkii dhaqanka Soomaalida ku jooqan. waxaana qarxay kacdan xoog leh. Ingiriisku si degdeg ah ayuu uga jawaabay, wuxuuna dil iyo xabsi isugu diray culimadii iyo shacabkii kacdoonka sameeyay. Ingiriisku waxa uu yeeray ciidamo Hindi iyo Koonfur Afrikaan ah oo uu hogaaminayay sargaal la yiraahdo James David si ay ula dagaalamaan Sheekh Bashiir. Gumaystaha Ingiriisku waxa uu u ballan qaaday cidii soo disha Sheekh Bashiir ee askartiisa ka tirsan inuu siin doono 2 alif ama dalacsiin doono oo uu darajo ku tixi doono. Cidii aan askartiisa ka tirsanayn ee soo dishana uu abaalgud lacageed jeebabka ugu guri doono. Ugu dambeyn 7 Luulyo 1947 ciidamadii Ingiriisku waxay heleen Sheekh Bashiir iyo kooxdiisii, waxayna isku waajaheen dagaal foolka-fool ah. Dagaalkaasi waxaa lagu dilay Sheekh Bashiir Yuusuf Sheekh Xasan iyo ku-xigeenkiisii Cali Yuusuf Cilmi Qaybdiid. Si kastaba ha ahaatee, Sheekh Bashiir waa la dilay oo waliba waxaa dilkiisa isku qabsaday 2 nin oo Soomaali ah oo markaa midiba gaarkiisa u yiri anaa xabadaydu ku dhacday iyo anigay ku dhacday. Nasiib darro, geerida foosha
xun Soomaali kamay xumaan ee waxa ka xumaaday intii markaa damiirka iyo dhiigga wadaninimo uu ku jiray dadkaas oo ugu horeeyo Gabya Xaaji Aadan Afqalooc oo halgamaa ah wuxuu yiri duhur baa Bashiir lagu shandaday daaragtiina ah damal la hadgalaabay jabsheen waqay duloobaane dahriga iyo laabtay rasaas kaga daloosheen isagoo damiye dhiig leh oo mara ku duuduuban dadkii uu necbaa iyo kufra daawasho u yimi dacdariye dihaan iyo cagba loogu sii daray meydkiisii daahira markii dibadda loo jiiday nimankii dilkiisii qirtiyay idinka duunkiina kolkii aaska loo diiday waad wada dul joogteen ma damqane jiirkiini markaa waad ku digateen nasabada duriyatiitiin kama dareerteen gobannimo daleel lagama helo daaraadoo galay hadaa doona leedahay nafta diiq la geliyay waa mur iyo deebaaq waxa dib ugu aydaaye marse hadaan waxaan doonayay dawladnimo waaye dantay weeye inaan aamusa eegan dabadeed dulga ku jira noloshu waa idinku deelqaafe